Soo dhawaada asxaabta qaaliga waa mar kale barnaamijkeeni isdhalaale adigoo isdhaawicin ma ka mid tahay dadka wejigooda uu gaduuto mar walbana wejiga ka gaduudanayo labada dhaban ka kululaanayo hooska ku leh ma tahay dadka dried skinka maqaarkooda uu aadka u qalalan yahay wax qoyaan aanan lahayn jawaabtaada haddii aad tahay waxaan ku wadaa maaskiro kaa caawinayo waxyaabahaasoo dhan wejigaada qoyaan fara badan kuu siinayo fitamiinis fara badan kuu siinayo kuu nafaqeynayo wejigaada dhabanadaada kaaga dhigaya dhabana labeyle aad u qurux badan dheehii kaa dhintayna kuu soo nooleynayo wejigaada dheehiisa kaaga dhigaya dheeh qurux badan naturaal ah si dabiiciyana kugu caawinayo anti aging dabiiciyana ku siinayo wejigaada kaaga dhigayo weji baby aad u qurux badan haddii aad tahay dadka wejiga ka kululaanaya aad ayuu ku caawinaya nagala faa'iidayso muuqaalka nala sheer garay leegta ku dhufo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada walaalaha qaliga waa mar kale muuqaal kale cusub fadla muuqaalka nala daawo nala sheer garay asxaabtaada kalan la wadaaga dadigu cusubtaa soo dhawo kanaalka subscribe dhaho kamaraalka furasa marwali muuqaalada aan soo geliyo aad u dhaqo daawadaha ugu horeeya ee daawada maaskigeena yara ayaan diyaarsanaynaa insha allah idinkana nala socda muuqaalkana lagta ku dhufo si walaalo kaloo fara badan ay noogu soo biiraan ugu horreyn shayga koowaad aan haysta waxa waaye waa bataati macaan ma ahan baradho ee waa bataati qofkii yaqaana wuu yaqaana qofaan aqoon inuu jiro umaleymayo waa bataati macaanka waad soo kariye waad soo bislaynaysaa bataatiga biyo ayaa dabka la soo saaraysaa welibana si xoog ayaa la rabaa inaad usoo bislayso si hadhow markii la burburinayo oo u noqdo wax burburayo ama daqiiq noqonayo ayaa la rabaa in aad soo karkariso aad biyo kusoo karkariso oo aad daqiiqa dhigto hadda waa kaasa sidaad arkaysaanba waa aad ayuu u jilcan yahay waa kaasa wax daqiiq ayuu noqonaya markaad farta khaas ku dhahdo sidaan oo kale samaynaysaa hadda waan soo fiiqay waan soo diiray halkan ayaan kusoo shubo waan burburinaya welibana xoog ayaan usii burburi doonaa bataatiga wuxuu kaa caawinayaa waxa uu ku siinayaa fitamiinis fara badan ayuu ku siinayaa welibana fitamiin iga ayuu aad qani ugu yahay sidoo kale wuxuu leeyahay fitamiin b6 iyo fitamiin b5 mineraalo fara badan ayaa ka buuxo macdan fara badan ayaa ku jirto jirkaaga maasha allah aad ayuu kugu qurxinayaa haddii aad cunto iyo haddii aad cabto iyo haddii aad marsataba labada faa'iidooyin fara badan ayuu kuu leeyahay jirkaadana jir aad u qurux badan ayuu kaaga dhigayaa sidoo kale wuxuu ku siinayaa anti aging dabiici ayuu ku siinayaa anti aging welibana xoog oo degdeg ah ayuu ku siinayaa geedka ayuu aad ula dagaalamaa wejigaadana wuxuu kaaga dhigaa weji mar walbaba ifaya ayuu kaaga dhigayaa sidoo kale waxaan haystaa waxay tahay caanaha fadhiyo caanahan waa caano kareem kareem camal ah waxaad ka helaysaa supermarketyada ayaa ka helaysaa waxa laga hagaajiyey ama laga sameeyey labeenta caanaha lo'da ayaa laga hagaajiyey waxaan u maleysaa kareem kareem ayaa u maleysaa sida whipped kareemka camal waaye waxyaabaha macmacaanka ayaa lagu hagaajistaa caanahan waxa ay ku siinayaan moisturizer fara badan ayay ku siinayaan wejiga haddii aad qallayl xoog ay ka tahay aaday kaaga caawinayaan sidoo kale haddii aad kululaanayso way ku qaboojinayaan dheeha ama dhameyntii wejigii kaa dhimatayna way kuu soo nooleynayaan maanta waan isku qasayaa caanihii iyo waxaan isku qasayaa bataatigii waan jejebinayaa daqiiq ayaan ka dhigayaa maskigan anti aging ayaad ka helaysaa whitening dabiici ayaad ka helaysaa sidoo kale waxaad ka helaysaa fitamiino fara badan ayaad ka helaysaa mineraalo fara badan ayaad ka helaysaa macdan fara badan ayaa ka buuxdo wejigaadana wuu ku nafaqeynayaa nafaqooyin fara badan ayuu leeyahay wuu ku nafaqeynayaa nafaqooyin fara badan ayaad ka helaysaa sidoo kale waxaad ka helaysaa haddii aad tahay dadka wejiga ka kululaanayo wuxuu ku siinayaa qabow ayuu ku siinayaa oo wejiga wuu ku qaboojinayaa wejigaadana wuu ku dejinayaa jawi degan ayuu kaaga dhigayaa waxaan ku darsanayaa waxa waaye caano ayaan ku darsanayaa xogo inaga yara adag yahay ayaan arkay caanaha ayaan ku jilcinayaa adigana caanahada soo qaada ku jilcisa caanaha laftirkooda fitamiinis ayay leeyihiin maqaarka way u wanaagsan yihiin maasha allah marka waxaad samaynaysaa maaskiga
maalin kasta ayaa saaranaysaa haddii aad tahay dadka wejigooda uu qalalan yahay, gaduudanayo, hooska uu uga jiro, sidoo kale dheeha wejigiina uu ka dhammaaday, kheyraad fara badanna ay ka saaran tahay. Aaduu kuu caawinaya. Anti aging dabiiciyana wuu ku siinayaa oo welibana si dabiici ah ayuu wejigaadana kuugu qurxinayaa. Anti aging degdeg ah ayuu ku siinayaa oo age-ka ayuu la dagaalamaa. Yacni duuduubka wejiga soo gala iyo laalaabka wejiga ku imaado, waxyaabahaas oo dhan wuu kaa qaadaya, wuu kaa feereynaya, wuu kaa saaraya haddii aad leedahay. Haddii aadan lahayna ka hortag ayuu kuugu sameynayaa. Maqaarkaadana maqaar aad u qurux badan ayuu kaaga dhigayaa oo dhalaalayo, oo iftiimayo. Hadda waa kaasaa daqiiqaas ayaan kasoo dhigay, waan soo burburiyey. Marka hadduu ceyriin yahay ma burburayo, waxyaabo soo taagtaagan uu kaa noqonaya. Burburi jijibi daqiiquu ku noqonaya. Sidoo kale waxaan haystaa saliidda oo baby oil-ka ayaan haystaa. Saliidda baby oil-ka aad ayay u wanaagsan tahay. Maqaarkaada aad ugu wanaagsan tahay. Waad ku darsan kartaa. Haddii aad serum haysato, serumyada aad haysato waad ku darsan kartaa. Saliido kale oo vitamins haddii aad haysato waad ku darsan kartaa ayadana. Ani hadda waxaan haystaa baby oil aan haystaa. Dooqaada adigana ku darso. Maskigan gaduud meeluu kaa saarayaa. Sidoo kale dheeha wejigaadi ee kaa dhintay wuu kuu soo nooleynaya, wuu kuu soo celinaya. Iskiinkaadana iskiin xooggan iyo caafimaad qabo ayuu kaaga dhigayaa. Sidoo kale waxa uu kaaga dhigayaa wejigaada weji furfuran, nasiino ay ka muuqato, deggan ayuu kaaga dhigayaa. Kuleelka wejiga wuu kaa caawinayaa haddii aad tahay dadka dhabanada ka kululaado kale wuu kaa caawinayaa, wuu kuu qaboojinayaa. Whitening dabiiciyana wuu kuu siinayaa, wuu kuu nafaqeynayaa dhabanadaada dhabano qurux badan, nafaqeysan, labeyn leh ayuu kaaga dhigayaa. Haddii uu dheehi kaa dhintay oo kale, dheehi wuu kuu soo celinaya. Iskiinka hadduu khafiif kaa noqday, iskiinka wuu kuu xoojinayaa. Iskiinkaada iskiin difaac leh, xooggan ayuu kaaga dhigayaa. Waxyaabaha qaar xamili kara ayuu kaaga dhigayaa. Haddii aad tahay kiimiko, haddii aad tahay natural, labadaba waad isticmaali kartaa. Kaliya wejigaada ayuu kuu nafaqeynayaa. Vitamins fara badan uu kuu siinayaa. Unugyada jirka ayuu wuxuu kaaga dhigayaa unugyo caafimaad qaba ayuu kaaga dhigaa. Unugyada jirkaadana wuu kuu daaweynayaa. Bataatiga fitamiinada uu leeyahay, waxyaabaha uu qaniga ku yahay ayay ka mid tahay. Haddii markaas aad cuntana okay, haddii markaas aad isku quruxsana ayadana okay. Labadaba aad ayuu kuugu faa'iido leeyahay. Inaad ifahanteen ayaan ka rajaynayaa. Muuqaalkana like ku dhufo si walaalo kaloo fara badan oo u baahan oo muuqaalkan oo u gaaro ayagana ay ugu faa'iidaystaan. Adigana markaas aad sabab ugu noqoto. Sidoo kale haddii aad tahay asxaabteyda cusub soo dhawow kanaalkaada waaye. Gambaleelka furo si mar walba muuqaalada soo aan geliyo aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada. Subscribe haddaanan ku ahayn, subscribe iyo saar, like ku dhufo, comment qurux badan oo dhiirigelina iyo reeb. Waan kaaga mahadcelinayaa commentiyadaada quruxda badan. Soo dhawow ayaan ku leeyahay. Asxaabteyda cusub haddaad tahay iyo asxaabteyda hore labadaba waxaan idin leeyahay shukran ayaan idin leeyahay. Waad mahadsantihiin. Meeshaan emailka dheer ayaan idinka rajay.